dadka ku nool deegaanka Ceeriyaan oo ka tirsan degmada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag ayaa waxay maanta TV-ga caalamiga Universal uga warbixiyeen xaaladda abaareed ee ka jirta deegaankooda iyo saameynta ay ku yeelatay deegaan ahaan abaartu sidoo kalena waxay cabasho xoogan ka muujiyeen saami qaybsiga taakuleenta gurmadka abaaraha ee gobolka Sanaag ka socota oo aan la siin wixii ay xaq u lahaayeen deegaan ahaan taasoo ay dhaliisheeda dusha ka huwiyeen maamulka iyo gudida taakuleenta gurmadka abaaraha ee degmada Ceerigaabo waa siday hadalka u dhigeen iyagoo amuraas ka hadlayana waxay yiraahdeen waxaan ahay tuulaha magaalada Ceeriyaan waxa ka dhacay dunida waa la ogyahay abaar baa ka dhacday mid lafjaba baa ka dhacday annagu markaa waxa uma la yiraahdo maanu arag haday raashin tahay haday biyo tahay haday kormeer tahay haday guddi tahay haday maayir tahay hadii ay waxaanu sheegaynaa dad la alaaway inaanu nahay oo walaaway gobolku oo alaawayday guddida abaaraha adduunyana wax yar baa faraha lagaga hayaa waxa aanu leenahay haddaanu Soomaaliland ka mid nahay wama se aanu nahay dad islaama waxaanu leenahay biyo iyo raashin baa lala soo gaaro dadka haddaan nahay tuulada Ceeriyaan degmada Ceerigaabo maayar gobolka haday tahay haday maayarka tahay haday maamul tahay haday qolada tahay abaaraha ilaa la cidna soo martay male ilaa waxaan u sheegaynaa inaan nala ilaabay oo dadkana ay yihiin dad aan cidba soo marin dadkii xooliina waxay noqdeen digada waxaan jogeer waa kici waayay xooli waa soo aroori waayeen dunidu waxay noqotay kala xiran biyo waa la waayay inta wax maamul oo nala eega iyo cid noo timaada midna ma maanaan arag sida darteed ayaan u sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirada gobolka Sanaag maamulkiisa meesha la Ceeriyaan gobolku waa ka indhaqarsaday siiban waxa ka indhaqarsaday maayirka gobolka waxa u baahan tahay meesha la Ceeriyaan gurmad degdeg ah waxa ka jira abaar aad u waxyeeleysay oo xoolihii ay madheen dadkiina imika ku daba jiro gobolkuna waxa uu yimaadaa Ceeriyaan u baahda maalinta uu cod ka doonay inta kale uu ka maqan yahay mana xasuusna meeshaas hadii ay ka mid tahay Soomaaliland waxa u baahan tahay gurmad degdeg ah kolley wax fiican yahay ahaane wayna kaga soo libdeen waxaan la tilmaami karin baa naga soo libdeen qaasi ahaatee waxaan leenahay gobolku wuu naga seexday wuu na suqa yaraystay waana ilaaway hadalkaan naahna wuu naga hoos qaadi waayay waxaan leenahay gurma degdega oo biyo ah hadaan la helin geelu haraad buu baqbaqtay yaariguba waxaan leeyahay ha loo soo gurmado oo dadka asaga si degdeg ah biyo iyo baad wixii baahidooda ay loo heli karo ilaahay baa wax bixiya laakiin wixii loo heli karo loo helo Ahmed Mursal Askar TV-ga caalamiga Universal Ceelaf Weyn.